sida muuqanaysa Ruushka iyo Israa'iil ayaa isku dhici kara kadib markii ay soo duseen xoga muujinaya in nidaamka Patriot-ka lagu magacaabo oo difaaca gantaalada marka inay u direen wadankaasi Ukraine. bogga lagu magacaabo Axios ee laga leeyahay Mareykanka ayaa qoray in 9 gantaal oo nooca Patriot-ka lagu magacaabo in laga daabulay Israa'iil isla markaana ay ku sii jeedaan wadanka Ukraine haatana ay gaareen Poland. gantaaladan nidaamka Patriot-ka ayaa kuwa ka hortaga gantaalada balaastikada iyo nooca cruise-ka waana barnaamij dhawaantan Mareykanka ay geeyeen dalkaasi Israa'iil intii duqeynadii ka imaanaysay Iran iyo waliba Hezbollah ayaana la doonayay in looga hortago. Axios ayaa 3 ilo wareed waxay ka soo xigatay in haatan nidaamkaasi uu gaaray magaalada caasimadda dalkaasi Poland ayna ku sii jeedaan Ukraine. ilwareedyadu waxay intaa ku darayaan in Israa'iil bilihii ugu dambeeyay ay ka labalabaynaysay in nidaamkaasi laga qaado Israa'iil isla markaana Ukraine la geeyo iyagoo markaa ka baqaya inta ay keento argudasho ka imaanaysa dhanka Ruushka oo dhankooda aad u hubeen kara dhanka Iran oo haatan ay wada saxiixdeen heshiisyo dhanka difaaca ah. ilwareedyadu intaa waxay ku darayaan in Mareykanka uu ka dambeeyay umuurtaas isla markaana uu doonayo dhanka kale in Ukraine ay xooga saarto ka hortagista gantaalada ka imaanaya dhanka iyo dalka Ruushka. nidaamka Patriot-ka ayaa nidaam difaaceed oo awood u leh ka hortagista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn gantaalada balaastikada iyo waliba nooca kale ee loo yaqaan cruise. sida lagu waramayo ciidanka Israa'iiliyiinta ayaa horey loo xaqiijiyay in ay adeegsadeen barnaamijkaas markii dhawaan ay geeyeen Mareykanka halkaasi. tanina Israa'iil wali kama aysan hadlin waxaana muuqanaysa in Ruushka aysan faraha ka laaban doonin umuurtaasi. maamulka Ahmed Sharac ee dalkaasi Syria kadib kulan ay la qaateen wafdigii ka socday wadanka Ruushka waxaa muuqanaysa inaysan diyaar u ahayn inay ku degdegaan inay soo nooleeyaan xiriirka Ruushka iyo dalkaasi Syria waxaana haatan calaamad su'aal ay dul saaran tahay labada saldhig ay ku dambeeyeen Ruushka ay ku leeyihiin dalkaasi Syria waxaana haatan Syria ay ka dalbatay dalkaasi Ruushka in marka ugu horeysa la saxo khaladaadkii horey ay Ruushka uga galeen dalkaasi Syria sida hadalka ay u dhigeen dibna loo soo celiyo kalsoonida. maamulka Ahmed Sharac waxa ay ka dalbadeen Ruushka laba arin oo ah magdhow in ay bixiyaan inay ka qayb qaataan dib u dhiska wadanka Ruushka wadankaasi Syria waxayna Ruushka ku eedeynayeen inay qayb ka ahaayeen burburkii dalka Syria maadaama ay taageerayeen maamulkii xilka laga tuuray ee Bashar al-Assad. wafdigii dalkaasi Ruushka ergiga hogaaminayna waxa uu tilmaamay in labada dhinac ay isku raaceen arrimo la xiriira si xoojinta xiriirka laakiin waxa uu mugdi geliyay aayaha sida uu noqon doono asaligeedii ay ku lahaayeen wadankaasi Syria waxaana ergiga inta uu ku daray in ay sii socon doonaan wada tashiga iyo kulamada ay yeelan doonaan oo ay jiri doonaan kulamo dheeraad ah oo ku aadan in la isla meel dhigo sida uu noqonayo aayaha saldhigyadaasi. wafdigii Masar tagay ee ka socday kooxdaasi Xamaas oo hogaaminayay sarkaalka lagu magacaabo Maxamed Darwish waxaa lagu afgartay in 48 saacadood marka lagu sii daayo gabadha Arbil Yahuud lagu magacaabo Israa'iiliintu aad u dalbanayaan waxaana la xaqiijiyay in Xamaas ay kaga warbixiyeen wafdigaasi ay la kulmeen oo ugu horeeyay madaxa sirdoonka dalkaasi Masar Xasan al-Rashad ninka lagu magacaabo xaaladii ugu dambeysay heshiiska xabad joojinta iyo waxyaabaha ay filan karaan. waxaana haatan Xamaas ay soo jeediyeen labo hindise oo ku aadan sida uu noqonayo aayaha jiida Gaza waxaana ugu horeeya dhisida dawlad iskaashi dawlad midnimo qaran ah iyo in dhismo guddi taageero bulsho la sameeyo oo markaasi guddi ka imaanaya jiidaasi Gaza lagu maamulo sida uu noqonayo ama in la sameeyo midnimo qaran dawlad ah oo dhammaan kooxaha Falastiiniyiinta ay ku jiraan. waxaa muuqanaysa in Fatah ay dhawaanahan aad uga soo horjeedeen sida ay wax u wado kooxdaasi Xamaas haatan waxay u furan tahay in maamulka jiida Gaza lagala qayb qaato
2007 iyaga ayaa toos u hayay ilaa iyo weerarkii October uu dhacayay taa oo keentay in iyaga iyo Fatah isku dhacaan haatan Hamas waxa la xusaya inay soo jeediyeen labadaasi arin kooxaha Falastiiniyiinta iyo maamulka Mahmoud Abbas Abu Mazin ayana jawaab laga sugaya warkii caalamka ayaa daawanaysan shabakada Gelen Media madaxweynaha wadankaasi Ruushka Vladimir Putin waxa uu carabka uu ku adkeeyay in dagaalka Ukraine ay kula jiraan kaliya lagu soo afdari karo oo lagu soo dhameyn karo laba xaaladood oo ah in ugu horeyntii reer galbeedku ay joojiyaan taageerada ay siinayaan wadankaasi Ukraine waxa uu sheegay inta hadii ay timaado oo maalgelinta hubka ay joojiyaan in muddo bil ama 2 bil lagu soo afjari karo oo ku dhamaan karo dagaalkaasi dhanka kale waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in loolanka iyo dhibaatada kala dhaxaysa Ukraine la soo afjaro laakiin waxa uu diiday in wadahadalo toos ah uu la yeesho madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelensky oo uu sheegay in waqtigiisa uu dhamaaday umurtan waxay imaanaysaa xilli Mareykanka dhanka kale uu ka shaqeynayo kulan uu la qaato madaxweynaha dalka madaxweynaha wadankaasi Ruushka Vladimir Putin oo ku aadan ka xaajoodka sida loo soo afjari lahaa dagaalka dheeraaday ee 3 sano sii dhaafaya ee ka soconaya wadankaasi Ukraine warkii caalamkana daawadayaal subaxnimadan waa naga inta mar kale ayaan dib u kulmi doonaa inta ka horeysana waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo fi amaanillah salaamullaahi calaykum